بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. marka ugu horeysa waxaan leeyahay dhamaantiin qoladina warbaahinta oo meesha isugu timid waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. marka labaad dalka iyo dadku waa nabad, wax dhiba oo weyn ma jirto. waxaan halkan isu soo taagay inaan laba kelmadood ka idhaahdo. labada kelmadood waxay ku saabsan yihiin shirkadda wararka ee BBC-da. markii aanu wax badan wada hadalnay ummadda reer Somaliland, qof kasta, goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uuna soo gaarsiiyey fariin ah inay magacii ummadda reer Somaliland meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay'adda BBC-da laanta afka Soomaaliga. markay magacii ummadda reer Somaliland hoos u dhigtay, markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyowga af Soomaaliga ku hadla, markii ay ka hor timid qarannimadii jamhuuriyadda Somaliland. 65 sannadood oo ay shaqaynaysay oo ummadda reer Somaliland u shaqaynaysay iyadoo duruufo badan oo kala duwan ay ku soo shaqaynayeen ama dadka reer Somaliland ku dhageysanayay 65 ka sannadood. maray gumaysi ahayd, maray dawlad madax bannaan ahayd, maray dalal kale isku jireen iyo maray madax bannaanayd oo 30 sano u dambeeyay. BBC waxay aqoonsan weyday in ay tahay dal dimuqraadi ah oo 30 sannadood cagahooda ku taagnaa oo doorashooyin galay oo 5 madaxweyne doorasho isku bedeleen oo 3 golo baarlamaan isku bedeleen ilaa iyo hadda erayada ay u isticmaashaa waxay noqdeen kuwo aan u qalmin inay dhegaha ummadda reer Somaliland maqlaan. waxay lumisay dhaqankii iyo taariikhdii jiritaanka ahaa ee ka dhaxeeyay ummadda reer Somaliland iyo BBC-da. laga bilaabo maanta oo ah taariikhdu maanta tahay 18 bishii 7 19 bishii 7 23 waxaan go'aamiyey in dhammaan wax alla wixii shaqo ah ee ay BBC-du Somaliland u haysay in la hakiyo ama la joojiyo. cid walba iyo xafiis walba iyo mas'uul kasta oo qaranka ka tirsanina sidaas ula soconaya. ummadda reer Somaliland dhagahoodu waxay nagu badiyeen inaanu BBC-da ahayn BBC-da la dhageysan jiray ee ay tahay BBC ka duwan tii ummadda reer Somaliland la jaan qaaday 65 sano. fakarka BBC-da loo abuurayna waxay ahayd markii aynu ahayn Somaliland Protectorate oo Ingiriisku xukumi jiray cidda afka Soomaaliga ku hadashay ee Ingiriisku markaa xukumaana ee toos hoos tagtaana waxay ahayd ummadda reer Somaliland. dhaqan ahaan iyo culture ahaan iyo in la abuuro hay'adda BBC-du waxay ka soo jeeday doonistii ummadda reer Somaliland iyo Ingiriiska ka dhaxaysay. haddana BBC waxay noqotay cadaawadda koowaad ee ummadda reer Somaliland magaceeda, sharafteeda iyo milgaheedaba hoos u dhigay. sidaa daraaddeed dawladaha waxaanu go'aaminay mar labaad inaanu joojino wada shaqayn wixii aanu lanahayn dhammaanteed. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. guul baan idiin rajaynayaa. wixii hawl ah ee kale waxay noqon doonaan cidda khusaysa ayaanu ku wada xidhiidhi doonaa correspondence ama waraaqo. aad baan idin salaamay. waxaynu ognahay idaacadda BBC-du inay tahay idaacad Somaliland ka shaqaynaysay muddo dheer si sharciyan uga shaqaynaysay. maxay tahay sababta maanta aad shaqadeeda u hakiseen warbaahinta ma loodahay? waan sheegayba wax cusub maadkeeda. mudane wasiir waxaan ku weydiinayaa idaacadda BBC waa warbaahin
أيامه تبين كمان داوني إذا عاد في كتاب كمان لكن وحدتك أسوالي لا وحرت شيء هالك قاعد كبرتي إلى أقوسم ويدي سومالي إذا الدولة دي إنجليز طبعا هو والباهي سيد الله أقوسم أنا وأقوسي هذا كمر ابن قاب كأي أشقين الصو أي مجيء أمد الرئيس سومالي لان هو صدقتي شرفتودي يكرامدودي وحنا كل شقينا فكر كي يدونست أمد الرئيس سومالي لان قول باردين رجينا والسلام عليكم